Боже, що був? subax wanaagsan khiyaarteena ku soo dhawaada tabin kale iyo sheekooyinkii ugu waaweynaa xiisadda bariga dhexe iyo xaaladihii ugu dambeeyey dagaalada Iiraan iyo weliba Israa'iil maxaa ka hirgalay xabajoojintii uu ku dhawaaqay Trump Iiraan oo turtay gantaaladii iyo weliba rasaastii ugu dambeysay ka hor heshiiska iyo weliba Israa'iil oo dishay qabiir dhanka nukliyeerka oo Iiraan u dhashay sheekooyinkii ugu waaweynaa ayaan diradda ku saari doonaa haddaba soo dhawaada meel kasta oo aad joogtaan fadlan subscribe saaro sii share garee saaxiibadiina la wadaaga aad baad u mahadsantihiin aanu ku bilownay wararkii ugu dambeeyay haddii aanu ku horumarno muuqaaladan iyo weliba markaasi sawiradii ugu dambeeyay aad daawanaysay waxay ahaayeen gantaalo lagu tuuray qaybo ka mid ah Israa'iil dadka qaar waa u maleynaya qaybo ka mid ah Gaza iyo weliba meelo kale laakiin ma ahayn deegaanka Be'er Sab'a oo ka mid ah deegaanada markaa Israa'iil ayaa la sheegay in sawaariikh iyo weliba gantaalo aad u fara badan ay ku dhaceen ciidamada Israa'iiliyiinta goor dhaweyd waxay sheegeen ilaa iyo 6 weerar oo xoogan inay markaas iyagu Iiraaniyiintu ka yimaadeen isla markaana lagu soo tuuray Tel Aviv, Haifa, Be'er Sab'a iyo weliba meelo kale dhawaqa digniinaha bixiya ayaa laga maqlayay meelo badan oo ka mid ah Israa'iil waxaana markaasi waxaa ammaanka iyo weliba arrimaha gudaha ay ka dalbanayeen Israa'iiliyiintu in dhulka hoostiisa aysan ka soo bixin iyo goobihii kale oo loogu talagalay inay iyagu kaga gambadaan weerarada kaga imanaya Israa'iil markaasi waa Iiraan Israa'iil sanadkan waxay martay mid ka mid ah dhibaatooyinkii ugu waaweynaa ebid taariikhdooda ay maraan iyadoona la tilmaamayo dagaaladii 12 cishaa Iiraan ay la galeen in saameyn xoogan ay ka dhalan doonto haddii aanu ku horeyno waxaa la tilmaamayaa 3 ruux ilaa iyo dad u dhaxeeya 6 ruux ayaa la sheegay inay ku geeriyoodeen marka la eego weeraradii ugu dambeeyay deegaanka Be'er Sab'a lama sheegin meelaha kale oo Israa'iil mar walba waxay qarisaa khasaaraha rasmiga iyo weliba waxa ka dhashay laakiin arrinta cajiibka waxay tahay wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in ciidamada Israa'iiliyiintu khasaaro xoogan uu ka soo gaaray marka la eego deegaanka Gaza iyadoo sidaas ay tahay haddana waxa la tilmaamayaa in shacabkii looga sii daba tagay magaalooyinka kala duwan ee Israa'iil gaar ahaan deegaanada Tel Aviv iyo weliba Be'er Sab'a Iiraaniyiintu waxay ku guuleysteen inay iyagu noqdaan kuwii ugu dambeeyay ama ruuxii ugu dambeeyay rasaasta ugu dambaysa rida taas oo markaasi Iiraan markii horeba ay shuruudda ku shardisay in ay qayb ka noqoto ama markaas ay noqoto kan ugu dambeeya rasaasta tuuraya sidoo kale waxaa la tilmaamaya khubaraduna ay isku raaceen in Iiraaniyiintu iyagu aysan dalban xabajoojintu ma u baahnayeen mise ma baahna waa sax iyagu inay u baahnayd Iiraan si iyagu culayska isaga yareeyaan maadaama khasaaro badan uu gaaray laakiin cidda sida rasmiga u dalbatay khasaaraha in la joojiyo xabadda ama xabajoojintu waxay ahayd Netanyahu iyo xukuumaddiisa markaasi sababtay u dalbanayaanna waxaa lagu sheegay in culayska gudaha ka jira waayo waxbarasho lama aado shaqo ma jirto dadka dhulka hoostiisa ay ku jiraan lama garanayo gantaalka halka uu ka imaanayo saacad kasta waxay filanayaan markaasi weerar iyo weliba masiibo kale waxay keentay marka Israa'iiliyiintu inay ka yaabaan halka loo socdo inay adkaato markaasi waxa la filan karayo dadku dhan waxay aamineen marka inay suuragal tahay inay dhici karaan wax aan la saadaalin iyo masiibooyin kale oo waaweyn taas oo marka ay keenayso marka la isweydiiyo talaabta xigta maxay noqon doontaa maxaa dhici doona markaasi haddaba wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in dhibaatadu halkaasi aysan ku ekaanaynin isla markaana mushkiladu ilbiriqsi kasta iyo saacad kasta ay ka sii dari karayso markaasi haddaba wararka hadda la helayo waxay tilmaamayaan in Israa'iiliyiintu dhibtu ay ku korortay markaasi iyaguna sidaas ay u dalbadeen wararka waxay sidoo kale sheegayaan in xabajoojintan aan la garanayn halka ay markaasi ku dambeyn doonto waayo Iiraan shalayta hore waxay duqeysay markaasi saldhigga Cudayd ee Qatar waxaa sidoo kale aroornimadii saaka la duqeeyay saldhigga magaalada Baghdad ee Taj loo yaqaano oo ciidamada Mareykanka fadhigoodu yahay ilaa hadda lama sheegin in marka Iiraan ay ka dambeyso laakiin waxaa la xaqiijiyay dhowr gantaal halka inay ku dhaceen qaraxyo laga maqlay qaybta korontada dab uu qabsaday isla markaana bayaan la soo saaray wasaaradda arrimaha gudaha waxay sheegeen
in markaasi gantaal iyo weliba markaasi diyaarad aan duuliyaha lahayn oo markaasi qaraxyo ay ka buuxaan in lagu weeraray laakiin aan la garanaynin halka weerarkaas uu ka yimid. sidoo kale wararkii ugu dambeeyay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu isagu ku dhawaaqay in xabajoojin ay jirto, laakiin sidaas oo ay tahay saacadihii ugu dambeeyay oo xabajoojinta lagu dhawaaqay weerar ay isdhaafsanayeen. Israel oo kale waxay duqeysay gudaha Iran, waxaana lagu soo waramayaa inay dileen caalim dhanka nuclear-ka, waxaana lagu magacaabaa Mohammed Rida Sadiqi, isagoo ku geeriyooday weerar Israa'iili markaasi. weeraradan waxay ka dhacayaan gudaha Iran markaasi ee kama dhacayaan banaanka. waqtiyada soo aadan waxaad maqli doontaan weerar kale ay ka dhacaya Iran, laakiin ay sameynayaan marka calooshadu shaqaystayaal iyo basaasiin sirdoonka Israel u shaqeynaya. waxaa la tilmaamayaa in ay ku dhex beersay dad aad u fara badan oo kumanaan ruuxa. waxaa la tilmaamayaa in aad ay u fara badan yihiin maalin walba Iran ay qabanayso dad basaasiina, kuwaas oo la ogaadayba hadda inay iyagu ka dambeeyeen oo gantaalkii diyaaradii lagu dhuftay miinadii markaasi lagu duqeeyay Ismaaciil Haniya in markaasi ay ahayd mid laga soo dhex tuuray gudaha Iran, isla markaana kuwa hadda weerar ka geystay doonaya dowladda inay ridaan iyagu markaasi ay geysteen. waxaa la ogaaday in markaasi diyaaradii aanduuli ay markaa la burburtay madaxweynihii dalkaasi Iran Ibrahim Raisi, Israel inay ka dambeysay isla markaana aan la ogaaninba. hadda la ogaanayo in calooshadu shaqaystayaashan iyagu ay ahaayeen kuwii diyaaradda tuulay, sida ugu yaraan xogaha hordhaca la helayo. laakiin dowladda Iran waxay u jeesan doontaa baaritaan dhaba iyo weliba isku shaandhayn dhanka ciidamada, dabagal iyo weliba maalmaha soo aadan weji kale dagaal gudaha oo ay geli doonaan oo ay doonayaan inay ku beegsadaan marka la eego tallaabooyinka gudaha, isla markaana tallaabooyin badan ay rabaan inay qaadaan. xubintan waxay ahayd markaa wararkii ugu waaweynaa, iyadoona maalmaha soo aadan waxyaabo badan ay ka dhici karaan. Trump ugu dambeyn wuxuu ku hanjabay in tallaab laga qaadi doono ciddii ku markaa xadgudubta. xalayna waa hambaliyay, wuxuu yidhi ilaahay ha barakeeyo Iran, ilaahayna ha barakeeyo Israel. marka waa soo dhamaatay dagaalka. marka ninkaa waa nin cajiibo aad ugu yaab badan markaasi. marka sii shaargaraya saaxiibadiina la wadaaga. soo dhawaada. Боже, що був? Вам жить негде. Боже, що був?